السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وهذا شارب بالشو أو مرة بكذا وطن ورك السياسة دا هي أرمها بالشدة. ما تروح كسر قادنا إنها هدي إلهي إدمو سياسي عبد الرحمن عبد الشكور. أيها سمعدي سكر أصوك عليه كدي مركي عداتي أو عدسي محكمة عالمي جاه أنا حكمت ذلك الصومالية إن ليدا هاي بدي إسكويستين كينيا يا الصومالية. عبد الرحمن عبد الشكور أو أيضا تسوي إمانيسي غيبها كل الدول ee siyaasiyiinta ka soo horjeeda in uu madaxweyne Soomaaliya ka noqdo ama ka soo horjeeda aftahanimadiisa iyo siyaasadiisa ayaa ku dhaliilahayay una tusahayay dhinaca xun bulshada in uu yahay ninkii ka dambeeyay Kenya inay Soomaaliya ku qabsato badda ama uu iibsaday badda taasi oo noqotay been aan sal iyo raatoona lahayn. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah siyaasi aad diinta u bartay islaamka iyo culunta kale ee maadiga ahba ahna siyaasi aftahan ah ayaa u samray oo inta siyaasadda ugu samreeyay xaqiiqda ilaa ay imaan doonto balse siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa haatan cadaatay inuu soo wax lug ku lahayn Kenya uusan heshiis kula gelin badda Soomaaliya balse heshiiskii dawladda ku meel gaarka ah Sheekh Shariif uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha uu ka ahaa Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ay ahayd wada hadal markii Kenya ay ku qabsatay badda Soomaaliya wada hadal dahfur ahaa oo Kenya lagu qancinayay inay sabadani shuqul ku lahayn iyo is-afgarad in laga gaaro wax allaale iyo wixii labada dal soo dhaxgala balse aysan ahayn heshiis dhinaca badda ah oo xilligaasi la galay sida uu sheegay madaxweynihii hore ee ku meel gaarka ah Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa wuxuu cadeeyay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu soo wacay oo uu yiri waxa jira heshiis is-afgarad ah madaxweyne arintaasi ma saxiixi karaa balse uu Shariif ugu jawaabay waa madaxweynihii ku meel gaarka ah xilligaas inuu la tashado ra'iisul wasaarahana uu amar ku siiyay mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur in uu heshiiskaasi is-afgaradka saxiixo balse heshiiskaasi kuma saleysnayn sida dadka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay u dhigahayaan cadowgiisa siyaasadeed ah oo ah in uu badii Soomaaliya heshiis Kenya kula galay haddaba maantay ayay arintaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay ka rogantay wixii allaale iyo wixii lagu tuhmayay oo shacabka Soomaaliyeed beenta looga sheegay taasoo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay cadaatay inuu ka mid ahaa dadkii difaacayay badda Soomaaliya haddaba saadaal la sameeyay ayaa lagu ogaaday in Cabdiraxmaan Cabdishakuur taageeradiisu ay haatan cirka marayso oo afka ciidda dambas looga shubay kuwii asaga siyaasad ahaan uga soo horjeeday oo shacabka ka horkeenayay ama wararkii beenta ahaa ee ku faafinayeen baraha bulshada waa siyaasiyiinta hunguriga xun ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur aftahanimadiisa iyo aqoontiisa diiniga iyo maadigaba iyo hoggaankiisa wanaagsan ka soo horjeeda wana dhalinyaro ah oo wax bartay una taagan inuu dalkiisa wax ka noqdo una shaqeeyo habeen iyo maalin haddaba halka kala socotaan waa Shaarib Show mar walba arrimaha faaqidaada siyaasadda iyo ayaan ku bandhignaa iyo arrimaha bulshada subscribe siisar si aad mar walba noola socotid oo barnaamijyadan kugu soo dhacaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Happy